subax wanaagsan kusoo dhawaada wararka ugu dambeeyay ee suuqa cryptocurrency haddii aan ku bilowno maanta waxaan warinaynaa mar kale bitcoin oo samaysay taariikh cajiib ah waxa ay gartay all time high cusub markii ay jibisay all time highgii hore kaas oo ahaa 124,000 bitcoin hadda xilligan la taagan yahay waxa ay gaartay wax ka badan 125,000 waana taariikh cusub oo bitcoin ay dhigtay maanta oo ay taariikhdu tahay 5 bisha Oktoobar sida la filayay suuqa cryptocurrency bishan Oktoobar dhaqaaq aad u weyn ayaa laga filayay waana la arkay asbuucii ugu horreeyay suuqa waxa uu sameeyay dhaqaaq aan caadi ahayn bitcoin-tuna waxay dhigtay taariikh cusub sidoo kale falanqeeyaashu waxay isbarbardhig ku sameeyeen government shutdownkii hore ahaa kii ugu xumaa ee dhacay sanadihii lasoo dhaafay iyo government shutdownkan cusub waxa uu bitcoin ka bedelay falanqeeyaashu waxay leeyihiin weli lama arag dhaqaaqa uu suuqan uu sameeyay bishan Oktoobar iyo government shutdownka uu isku soo aaday waa government shutdownka hore u dhacay iyo kriptada marka isbarbardhig lagu sameeyo khubaradu waxay leeyihiin marka isbarbardhig lagu sameeyo government shutdownka hore ee dhacay iyo kan hadda taagan waxay leeyihiin kani waxa uu sababay hubanti la'aan dhaqaale dadka oo ka cararaya in ay maalgashadaan lacagaha fiyaadka oo aad u hooseeya ama hoos u dhac xoogan sameeyay dadkuna waxay raadinayaan inay maalgashi ku sameeyaan dahabka iyo cryptocurrency gaar ahaan bitcoin-ta sidaa daraaddeed iyo sidoo kale deymaha caalamka oo sare u kac weyn sameeyay sidaas ayay dadku waxay ku doonayaan markan inay maalgashtaan lacagaha digitalka gaar ahaana kriptada iyo dahabka bitcoin waxa ay noqotay asadkeeda marka la eego kan toddobaad ee ugu weyn caalamka xilligan la taagan yahay iyadoo horey dhowr mar uga kormartay silfarka iyo sidoo kale Amazon iyo asadyo kale oo waaweyn oo caalami ah bitcoin hadda waxaa loo arkaa lacag aan dowladna ku xirnayn cidina aysan xakameyn karin sidoo kale kaliya ma aha maalgashi laakiin waxaa loo arkaa kayd istiraatiiji ah oo dadku ay hantidooda ku maalgashan karaan dhinaca saadaasha ugu macquulsan ee bitcoin laga bixiyay waxay ahayd in lagu qiyaasay in sanadkan 2025 dhammaadkiisa oo waqti aad u kooban ay ka harsan tahay bitcoin gaari karto wax ka badan 165,000 ilaa inta loo gaaro 180,000 laakiin marka la fiiriyo saadaasha dheer khubaradu waxay qabaan dhaqaale intaas ka badan ama hanti ama qiimo intaas ka badan in bitcoin ay gaari karto qaar waxa ay qiimeeyaanba ama ay saadaaliyeen in bitcoin ay dhaafi karto 1 milyan ugu dambeynna ETF-yada bitcoin waxay heleen gridii ugu badnayd tan iyo isniintii waxaa la qiimeeyey qiimo dhan 2.25 bilyan in ay heleen sidoo kale BlackRock iShares iyo kambaniyo kale oo weyn ayaa iyaguna waxay heleen 466 milyan oo gelitaan ah sidaa daraaddeed waxaa loo arkaa in bitcoin hadda qiimaha ay marayso ay sii dhaafo ugu dambeynna aasasaha telegram Buffalo Durov ninka la dhaho ayaa waxa uu yiri bitcoin waa noloshayda marka la isbarbar dhigo telegram iyo bitcoin waxaa noloshayda qurxiyay oo dhisay ayuu yiri bitcoin qiimo aad u yar ayaan ku iibsaday ayuu yiri sanadkii 2013 dhowr mar oo hore ayuu wuxuu yiri bitcoin qiimaheedu hoos u dhacay laakiin marnaba ma aanan gadin oo ma salgalin waan haystay ayuu yiri haddana waxa ay dhistay bitcoin noloshayda waxa uu leeyahay sanadkii 2013 ayaan waxaan iibsaday yiri dhowr boqol oo xabo oo bitcoin taas oo aan ku iibsaday ayuu yiri lacag dhan $700 laakiin telegram waxa uu yiri waa dhacdaa in mar walba aan khasaaro kala kulmo laakiin marnaba bitcoin wax khasaaro aan kala kulmin sidaa daraaddeed bitcoin waa noloshayda ayuu dadweynaha ninka la yiraahdo Buffalo Durov oo ah mulkiilaha iyo aasasaha bogga telegram wararkaas ayaa ugu dambeeyay suuqa cryptocurrency ee maanta mar walba la soco my exchange follow soo TikTok-gana sidoo kale haddii aad u baahan tihiin USDT qiimo jaban withdrawal iyo deposit akoonadiina ah nagala soo xiriira lambarka profilka saaran sidoo kale nagu soo booqo xarunteena oo ku taala dalka Xayaat Market iska kale aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin